السلام عليكم ورحمة الله. آدي بعض ما هسنتهين مرتقات كشرفت له مامور كجامعة شرف بيته هاي وين يرى علوستها هنا شيء عبد الحي كدم بيس وحي الدين إيو حكمة إيو علمي الله يسكو دري وانسوكو بيهدو اللي راهدو موضوع عاسان وحل سارنا هاي خيارتو اي اوسو قرين سيدي قفكا و سميسان لها مشروع اساقو اوليه اما شركتكو مقعاو اما هيئتكو مقعاو اما مقعا دونتدو بحي لكن سيدي اد ويالان لهايد مشروع عاس اساقاي وحان ارديدي كعود سنيا iyo inta kale meeshii joogtaba inaadan ku mashquulin muddada yar ee akhyaartu halkan taagan yihiin sheekada mobilada mashquulka bilaa micnada hal iska dhaaf hadda akhyaartii hadlaysay saacad ustaad sakfadina weydiinina ardayda dhageysan marka dadkii loo kireeyay meeshan quruxda badan loo ballamiyay akhyaartaas oo dhan ayaa wali si sheekaysanaya marka waa nasiib daro ha sameynina taas fadlan midda kale waxyaabaha inta laga soo jeediyo hanti ay ardaydu leeyihiin weeye waxay ka heli doonaan maamulka jaamacadda slideska kan ka horeeya kan ka dambeeya kulli waad heli doontaan wax waliba meeshaas laga sheego ama aad ku aragtaan inaad qalinka kula boodaan muhiim maaha laakiin waxaa muhiima qodobada asaaska ah waxyaabaha qofka afkiisa uu ka sheegayo numuudka muhiimka ah inaad bunuudaas qorataan aad iyo aad ay muhiim u tahay mawduucan oo ah mashruuca qofka sidoo u samaysan lahaa waxaan codsanayaa gacanta ha taago qofkii qorshihiisu aynan ahayn inuu xoroobo shirkad mashruuc hay'ad isaga uu leeyahay inta uu nool yahay inuu samaysto gacanta ha taaga qofkaas hal gabar laba gabar saddex gabar afar gabar shan okay good wax yar hal isdajiyo cilad farsama laga yaabaa inay dhacday hal maraan su'aasha ku celinayaa hadda si fiican u dhageyso aan ismaqalno midda iyada waxay daliil u tahay si fiican u dhageyso waxay daliil u tahay in dadka qaarkood qolofkooda uu nala joogo ujeedana kala haddana waa baraarugsana hal mar oo kale aan ku celiyo gacanta ha taago qofkii qorshihiisu uu yahay in uunan mashruuc isaga uu leeyahay oo uu ku madax bannaanaado uunan samaysanin inta uu nool yahay gacanta ha taago qofkaas haddaan isla soconnaa soo markiis this is the right response jawaabta saxda ah tan weeye micnaheedu marka waxa weeye qof waliba oo meeshan fadhiya ama wax barta wuxuu rabaa inuu xoroobo mashruuc samaysto ganacsade noqdo magacu doona ha lahaado walidaalika ereygaas entrepreneurka iyo ganacsaduhu marka la maqlo automatically waxaa nagu soo dhaca waxyaaba aad iyo aad u qaab daran loor beriisa iyo ganacsigii aad taqiino dhiiqada iyo dhib ka badnaa lagu jiro laakiin qarniga 21aadaan joognaa xilli interestina oo aad iyo aad u xiiso badan ayaad ku soo aadaysaa wali adiga ka fiican xilligeygii ka fiican xilligii baafo ka fiican xilligii in badan oo inta fadhida sababtoo fursadaha aad u badan inkastoo challenges-kooda uu jiro maadaama jaamacad aan joogno waxaan idinla wadaagi doonaa statistics yar oo ku saabsan entrepreneurska adduunyada sida ay kala yihiin xagee loo badan yahay maxaa fashiliya kadibna waxaan isla fiirin doonaa haddii la yiraahdo waxaad u baahan tahay inaad samaysid ka qalin jabiye ahaan inta misla hayna misla soconnaa good next fadlan maadaama aanan haysanin oo aan nasiinin bahalkii waxaan rabaa qofka meeshaas fadhiya dadka inta taagan inuu ila socdo si dhow horu soco okay next statistics kan hal mar hadaad eegtid tirakoobyada meelaha ka dhacaya adduunyada waxaad eegaysaa arkaysaa 2025 waa qeybii hadda ugu dambeeyay markaad fiirisid
150 milyan oo startups ayaa adduunyada jira 150 milyan oo mashruucyo ay dad aasaaseen sanadkan hadda tirakoobyada u dambeeyo la sameeynaya active wadamada ay kala yihiin iyo sida ay u kala badan yihiin wada arki kartaan Mareykanka u sareeya India Ingiriiska Canada ilaa iyo Brazil la yimaado waxaad arkaysaa intaas kuma jiraan wadan Afrikaana iska badaa Soomaali marka la fiiriyo top 10 kaas iyo wixii la midka ah fundingka adduunyada la galiyo 600 iyo waxoogaa intaasoo milyan wama ila dalika ugu dambeyntii ayadoo arkaysid gadaalaad ka arki doontaaye sababta ay u fashilmaan mashruucyadaasi adduunyada tiradaas badan saddex marka loo dhiga meel kamida wuxuu noqon doonaa wixii ay keeneen oo aan suuqa looga baahnayn juhdi baad gelin doontaan hadda idinka wixiina waa idinla qorxoon yihiin technology aad baratay code-ka aad qortaa kula qorxoon forms fiican web pages fiican website fiican aad samaysanaysaa laakiin ma isweydiinaysid su-aashii asaasiga ma xallinayaa problem suuqa ka jira productigan ma yahay product customer-ka xanuun haya ka qaadaya if yes good if no bullshit ayuu noqonayaa fashilku ku biiraya maadaama tirakoobiyadan isaas yihiin oo saas loo badan yahay 150 milyan ee ganacsiga adduunyada ka jira ayaa waxaad rabtaa inaad adiga ku biirtid mashruuc la timaadid adigu aad leedahay in lagu jiheeyo ayaa la rabaa marka fursadan iyada marka waxa weeye maadaama aad taa og tahay next waxaad ila fiirisaa wax yar heerka fashilka ganacsiga yaryar ee adduunyada waa 90% boqolkiiba 90 waxaad aragtay way fashilmi doonaan marka heerka fashilka adduunyadu waa boqolkiiba 90 guushu waa boqolkiiba 10 wax yar halkan hadaad eegtid oo kale labada kalar waxay ku kala matalayaan heerka fashilka iyo heerka guusha Mareykanka oo kale ganacsiyada ka bilaawda boqolkiiba 80 way fashilmaan just 20% kaliya ayaa guuleysanaya fiiri Canada the UK ila Germany soo soco Australia markaad fiirisid qaybta madowga ah oo heerka ganacsiga guuleystay intuu la eg yahay heerka fashilka fiiri taa maxay ku horseedaysaa marka inaad jiifka ka kacdid inaadan ku seexanin shahaadadii aad ka qaadatay jaamacadda Muqdisho iyo meel kasta oo kale it's not enough ma kugu filno wax kala jira oo u baahan tahay waana sababta barnaamijkan loo sameeyay waa sababta aniga la igu yeeray waa sababta isaga loogu yeeray waa sababta iyada loogu yeeray just in lagu sheego wax laga yaabo in fasalka aan lagu sheegin is that clear laakiin nasiib darray noqon doonta hadaadan dhageysan kuna amal falin waxa lagu sheegay heerka fashilka boqolkiiba 90 markuu yahay laba arrin buu ka dhalan kartaa dadka qaarkood way ku baraarugi doonaan dhaxday xiran doonaan way isku tashan doonaan kuwa qaarkoodna intay niyad jabaan ayay intay gurgurtaanay shaqaalanimo u dhamaan doonaan the choice is yours اختيارك adaa iska leh laakiin aniga ikhtiyaarka aan ku doori lahaa waxa weeye ha isdhiibin because sidaas uma adkaba saata u maraynays uma adka it's easy waa haddii laakiin aad fahamtid frame kana aad iska saxday ookiyaalaha kugu jira inaad lagu nadiifiyo kaliya u baahan tahay aad baad u xoog badan tahay actually laakiin ookiyaalaha ka wasaqaysan kaliya next waxaan rabaa markii inaad wax yar fiirisid qaybtan haddana waa isweydiinaysaa maadaama boqolkiiba 90 aan soo sheegnay heerka fashilka isweydii why ay u fashilmayaan waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah fashilka uu tiro badan yahay boqolkiiba 34 hebelo laakiin laba factor ah jirto boqolkiiba 56 heerka fashilka sababtoo ah waa alaabtii suuqa aad keentoon looga baahnayn product market fit waxa la dhaho iyo inaadan ku fiicnayn suuq geynta alaab fiican aad keentay laakiin ma suuq geyn kartid maxaad rabtaa in lagu yimaado marketing ma sameyn kartid maxaa asal u ah wixii hadda ay ka hadlayeen akhyaarta ma lihid soft skills communication kuma fiicin waxaad rabtaa qolkaaga inaad iska fadhid ma hadli kartid isma gadi kartid su'aal yar haddii lagu weydiiyo adiga isxiraya waxaad u dhaqmaysaa sidii 700 iyo 800 xaafad dhan oo hal dukaan ku yaala oo xaafadu ay ku qasban tahay dukaanka inay u doonato raashinka way lagu qasbanaa waagaas
hadda laakiin halkii xaafad ma imisa dukaan baa ku yaala speak ma u dhaqmi kartid sidaas oo kale so labada factor ee muhiimka waa maxay marka oo fashilkaaga mar waliba aad niyadda ku hayn doontid as entrepreneur alaabtan adeegan agabkan aan keenayo suuqa ma looga baahan yahay sideen ku hubinayaa kulan kale u baahanta aqoon kale u baahanta waxay u baahan tahay in muxaadarooyin kale laga diyaariyo laakiin adiga raadso shaqo ku taalo weey sideen ku hubiyaa waxa kan suuqa ma looga baahan yahay frames la maraa jira procedures la maraa jira talaabooyin aad qaadaysaa jira laakiin hal arrin inaad si ogaato way fiican tahay waxa aad suuqa keenaysid waa inuu xallinayaa problem suuqa ka jira problemkaas anything uu noqon kara anything mushkiladaas iyada marka aad xallisid lacagtu sideeda waa by product waa wax ka dhasha lacagtu waxay ka dhalan doontaa adeega aad qabanaysid qiimihiisa sida uu yahay tiro badan iyo tiro yar intaba marka labadaas qodob si fiican iga asbaabaha kala fiiri marka 56% gaas heerka fashilka ganacsiga maxaa ku sawirnaan lahaa marka hore ma taqaan lacag la'aan amay tahay soo isma dhihi lahayn teamka ama wadanka uu ganacsigaas ka samaysan yahay amuu yahay Soomaaliya fashilka ugu badan waxyaabahaas ku sawirnaa kulli xog taageeraysa arintaasi ma jirto xogta la hayo waa in fashilku uu ka imaanayo kuwii gudaha guuleystay kuwii gudaha ayaa guuleystay multi-million dollar laga sameeyaa xamarta aad joogtid Soomaaliyada aad joogtid dad adigoo kale ana ka sameeyo why problem bay xaliyeen yaa sawiranayay qashinka xaafadda ku yaala ee hooyada ay soo daadiso gabadha ay banaanka soo dhigto baabuurka iska ragaha ee jooga magaalada ee dhagaxyada soo qaadi jiray wiilka yar ee murqa kuuska ah ee 18 jirka iyo 20 jirka ah inta la isu keeno saddexdoodoo la isku meheriyo aroos yar loo qabto ayaa shirkad inta laga sameeyaa $100,000 laga sameeyaa shirkadaha qashinka qaada magaalada maxay qabtaan saddexdaas isu keeneen qashin meel yaalo lagu daray iska roga meel socday oo uu qaadayo wiil yar oo murqa kuusan saddexduba shalay way joogeen ogow nin baa yimid qashinkaas intuu arkay oo maalin kasta iska agmari jirtay intuu fiiro xeerooniyo baasha waa lacag it's like that rag baa magaalada markay marayaan indhuhu ay u furan yihiin gabdhaha indhaha u furan yihiin problem bay meel ku arkayaan nin meeshan waa ganacsi duur cidlay rag ganacsi u tahay imisa intana la kixiya meel cidle intana la geeyo leeri magaala laga dhis rabaaye meeshan ustaad investment yarna aan ku sameeyay boosas ka qaado imisa $200 hada meeshan duurka naga taga $10,000 baa markii dambe aan siisanay ayadoo aan leenahay wax yar firqiga muxuu ahaa indhahayga aan ahayn buu lahaa ninkii saas dhahayay is that clear that's what entrepreneur is all about entrepreneur lagu sheegayo intaas so heerka fashilku haysa next waxaan rabaa marka waxay ila fiirisaan gabdhaha iyo wiilasha aad maanta waa badee ma basininba gabdhaheeba badanba su'aal baa laga yaabaa in la isweydiinayo la leeyahay gabdhuhu ganacsiyada ay bilaabaan ka war gabdho indhaha fura daatadan si fiican u fiiriyo shirkaduhu ay bilaabaan wiilasha iyo gabdhaha ama wiilasha kaligood waxay heleen $156.2 bilyan halka kan gabdhaha kaliya ee asaaseen ay heleen $28 bilyan xagga fundingka marka la eego maalgelinta walidaalika dumarka kaligood u taagan hadaad isdhehaysa Soomaaliya kaliya lagu qoostaa benway it's just a global phenomenon adduunyada dhan ay ka jirtaa gabdha maxaad u baahan tihiin marka of course waad samaysan kartaan ganacsigiina laakiin ganacsigu bilowgiisa ma sahlan it's tough walidaalika hadaad la bahoobi kartid arday kugu fasala isku darsan kartaan arday kale isku darsan kartaan dad kale aad u muhiim u yahay sidii suna startup-iska iyo ganacsiyada la bilaabayo 2 ilaa 3 inta guuleysatay saasi u badan yihiin oo 2 meel ku kala fiican for example qof baa wuxuu ku fiican yahay marketing iyo suuqgeynta qofna wuxuu ku fiican yahay visionka iyo arrintan meesha u socotay hal abuuro kala weeyo laga yaabo inuu code qorayo laga yaabo inuu wax kala sameeyo marka aad fiiri sidoo kale 2023 fiiri fundiga ay heleen gabdhaha 2% weeyo wiilashan waxay heleen 20%
in la maalgeliyo ganacsigooda so haddaa is leedahay innaga inta waanu lagu quusanayay ma aha inta keliya ma aha laakiin naturally si dabiici ah gabdhuhu way hal abuur badan yihiin aad bay u fiican yihiin laakiin markuu yimaado entrepreneurship markuu yimaado it's challenging soo jeed tira badan environment aad iyo aad competition mararka qaarkood waa cut throat in qoorta la iska gooyo noqonaysa dadka qaar mararka qaarkood waa in la isku dul socdo waa oo aad dhaawacyo iyo looga soo tago halkaas so waad u baahan tahay qof ku balance gareeyo at least motivator kuu noqdo that's why kan wiilasha iyo gabdhaha oo iswata ay uga fiican yihiin by the way wiilasha keligood xataa waxay yiraahdeen hoos markay u sii fiideen wiilasha iyo gabdhaha markay isla socdaan ka soo xoogan waayo gabdhaha aad iyo aad ugu xoogeen xagga intuitionka inay wax sii arkaan cilad sii arkaan naxariista howlahaas way ku fiican yihiin marka dhankii customer care iyo marketing iyo qodobadaas oo kale gabdhaha way ku fiican yihiin sawira marka wiil very tough team tough iyo gabdho balance gareeyo intuitionki iyo aqliyadii ahay team noocaas oo kale way ka xoog badan yihiin team keligooda oo qarfadii ah oo meel iska taagtaagan ama gabdho laga yaabo jug yar markay soo gaarto wallahi abay waxaan samayn karnaa iska dhaafnaa isdhahaya isnadiisi so now waxaad arkaysaa marka labada color markaad kala fiirisid madowga iyo colorka kala fiiri it's massive difference kala duwanaanta aad bay u weyn tahay Soomaa so raadso qof shariik kula noqdo raadso qof aad wax wada qabsan kartaan oo haddii aad isfahamtaan aad wax wada qabsan kartaan by the way ina isku kuliyad noqotaan qasab ma aha ogow fikirka ku saabsan ardayda IT waxa isla qabato ardayda businesska ardayda engineeringka iska dhaadhicin been ah weeye taas sababtoo ah problemka suuqa laga xalinayo wuxuu dalbanayaa xirfado kala duwan it's not just one ma sida darteed waxaad u baahan tahay arday engineering iyo arday business iyo arday IT mashruuca ay aasaasan uu ka fiican yahay mashruuca ay aasaasan koox yar oo wada business because engineering mindset waa loo baahan yahay scientific analytical falanqeynaya kii business waa loo baahan yahay intuition kii mindset kii kala loo baahan yahay computer kii code kii website kii muxuu ahaa artificial intelligence had engineer ku ka hadlay all these things come together aad arintu sheegay way wax wada qabsiga way nagu xuntahay inaga Soomaaliga gal so waana la ogaaday oo waxa loo baahan yahay teamwork works koox in wax loo qabtaa wax lagu qabtaa mooyee shakhsi uu dhib badan yahay kaliya next waxaad fiirisaan marka cajiib weeye ardaydiina waxa laga yaabaa odayaasha sii waynaanay ina istiraahdaan new ever weeye ganacsi hadaadan yaraan ku bilaabin waa bas false دراسنا لسميه فيري average isku celcelis ahaan da'da ganacsiga bilowda adduunyada waa 40 ila bajir micnaheedu waxa weeye meeshaas waqti dheer aad haysataa how many kufa ku dhiman ma taqaan it's a lot maanta hadaa bilowda maxaa ku suura galaya 20-30 times aad ku fikirtaa before the average intaada gaarin oo kale hoosna sii fiiri haddana ganacsiga 60 jirka uu bilaabo inuu guuleysto aad iyo aad buu uga suuragal badan yahay mid kasta dunjirka uu bilaabo ustaad baa farjo fiican meesha iska jirto big so 60 ayaa lagu bilaabayaa ganacsi adigina maanta aad niyad jabsan tahay can you imagine maanta aad isdhiibtay can you imagine marmarsiyada aad haysto dhanna ma taqaano aad isu dhiibaysid wadankii baa eber ah kuwa sheekaysanaya arkaysaa mararka qaarkood isu yimaado wallahi inuu wadanka mugdi buu soo galayaa والله حالك وحون يحي حالك دحدا هذا كحنا كبدن كم بناك كحن to be honest with you وحكا دح سعود تو جمالين كستكو دح جرا أديك إيه حضر رياضة هذا إيه كنيت جبي إيه أدلك على هذا هاي إيه تسلاسو حلد دكان لا هذا هاي إيه كوجو مشغولية قن أنت ضد كاس كلي خلاص قبل هدات هاي نوحد كو مشغول سنت هاي مقار كاجساد وقن عن له يتقولك كله adoo badalay wiil hadaateen waxa ku mashquulsan tahay kii TV-ga laga arkay soo eegay si iyaga ay ku jeclaadaan ma u maleynay inaad sii wadi kartaan saas manana anfacaysa baday inagoo dhabo it's not by the way waxaan idin sheegayaa fursadaha iyo waxyaabahaas marka laga hadlayo fursadaha aad iyo aad u badan yihiin marka la fiiriyo waqtiga hadda la joogo cid wax noo sheegtay inaga saan ma aanan helaynin
waagii idinkoo kale aan ahayn ee jaamacadda la dhiganayay fursadaha maanta magaalada ka jira ma aynan jirin aniga markaan iskoolka dhiganayay waxaan xasuustaa in iskool aniga u socda in maalintii dambe la yiri war ma haysaa qabiilkaaga iyo qabiilkii kala isku dhaco nin odaya aad jidka ku jira xaafadan wixii ka soo baxo cidda ayuu line rabaay wadadan ka leexdo waa nin weyn oo oday oo 70 jir ah qori buu la fadhiyaa luuq aan soo marno ayuu fadhiistay wuxuu yiri wixii cidda ah qolo taqaana ii tilmaamoon aniga dhag dhahaye intaan noqonay xaafadda aan tagnay lama fadhiisan can you imagine resilience fiiriya adkaysiga intaan wareegsanaa dhinaca kale laga soo wareegtaan iskoolka imagine odayga kor baan ka arki jirnay kor markaan ka aragnaa ka dhuuman jirnay that's how wax lagu soo bartay dhimay isagii dabcan innagu ilaahay baan na badbaadiyay laakiin sawiro xaaladda noocaas oo kale midkeenna xaaladdaas inuu ku jirna laga yaabo maanta mana muuqato nicmo ka badan ayaa jirta laakiin nicmo waliba nuqsaan leh lama calaa calayn waagaas xaafadda madiina deganaa socodkii aan ka soo bilaabo eeldheere ayaa waxaan ku tagi jiray bukhaari iskool yiraahdo anoo luqadda carabiga dhiganayo 1994 95 halkaasaan tagi jiray all the way down lugana lagu soo noqon jiray waa laga yaabaa inaan ku qosashaan oo leeyahay odaygu wuxuu isu caabaynayaa waxyaabahaas iyo laakiin waxyaabahan xasuusto waxaa ka mid ah maskaxdayda ka go'ayn anigoo bakaaro dhex marayno ayaa waxaa u baahanay musqul markaas aan markaas waxaa haray musqul baan u baahanay xaafaddana ma gaarno waxaan sameynaa ruuxaas waa ceebaa la yiri ceeb waa maxay waa la is hayaabay gurigan baan garaacayaa mid baa wuxuu yiri ilaahu may gabar ka furto garaacnay gabadhii waa iga furtay waxay musqul baan u baahanay gudahan galay transaction-kaygaan soo dhamaystay waa soo noqdaan oo caadi bannaankii ku qoosleen adigu it was simple maantana hadduu alla ku reey waxaad u dhaqmaysaa si hadduu alla ku reey nugaylka iyo jilaac because ma huba aniga hadda kuwaan dhalaa u sheegaa waniyo maqaarkiina aad buu u jilicsayaan dhahaa why big deal ayay dad ila ahayd iyagii inaad weydiisto gabadhi markaan soo baxan soo dhamaystaa waxaa idhi aad baa u mahadsantahay walaal dhib ma lahayd tiri sawirka bannaanka nooga sawirnaa ceebta iyo in lagu qosli doono gabadha ay nagu shaacirayso doonta waaqic jira maba ahayn ba inagun baa iska dhaadheena qof walaalkeeda u baahan oo dhalinyaro musqul u baahan dad si gal soo dhamayso waa dhamaatay BC ho waan baahanahay ho frame of reference qaabka aan wax u eegaynaa wasaqaysan markaas waxaan u maleynaa magaaladii oo dhan dhiig inuu ka socdo magaaladii oo dhan in la isku haysto qolaha hadda waxay ku leeyihiin dalka meesha ugu xumeyd buu marayaa weligeed ma u fiicnaan bay gormaa la arkayba mar hore way ka darnay qolo walibana meesha ay u joogtay ugu xun tahay ogow kuwa hadda aniga waxaan xasuustaa marka oo waxyaabahaas laga hadlayo xaafadaan deganaaba intuu dagaal ka dhacaa la yidhi hala baxo mar alle markii la bixi maagay xaafadaas haddaan ka baxo waxaan aaminsanaa in la dhimanayo naga dhaaf de madfac baa dhacaya technica iridda horteeda taagan anoo la ijiidiyaa laga soo bixiyey way ii qurxooneed ani xaafadda gadaal markaan u eegano ka soo bixitaanka xaafadda aan ka soo baxay fatxi bay ii ahayd iyo furitaan iyo laygama horreyn so it's all about saa adiga u arkaysa bas iska sax aragtida negative-ka kaa dhex guuxaya iska sax sawirkaas marka isaga 42 jirku maadaama adduunyada uu yahay kuf badan baa laakiin ka horreeyo hadda loo baahan yahay inaad bilaawdid bilow fadlan hadda next waxaan rabnaa markay inaa hal mar ila fiirisaan waxyaabaha cajiibka ah عقدت إني كويس هلا جيابا لعكت ربنا إلى هلامي في عنتها ونيو ماستران وباهناي وكان علده ماسترين أنكلوان PhD إن أنكلوان دراسة سفعون فيرس تضبطني كوب بقول كيبا الدنيا ده ضدك وحساسي وباجلر ديجري simple خلاص that's where you are ماشي هذا الجوكتد وهذه جنا 70% بعض العالم كوبيري كرتاو مؤسسين تا as of tomorrow بالريوة بلا بكرتاو waxa ku haya marka wax banaanka jira ma I'm sure bari ma bilaabi kartid waxa ku hayana waa waxa adiga ka dhaxsooda gudahaaga weey so si fiican isu fiiri marka wax ka fiican ma jiro cudur adiga ku haya haddana daawadiisa adiga aad gacanta ku haysid isn't that interesting adiga haya so 70% ga start marka la fiiri master meeqa waa 16% so PhD fiiri 3% boqolkiiba 3 way akhyaarta PhD da haystee waxa asaasa you know the reason gadaal dambe ka arki doonaa ana idin sheegayaba
wax iskoolaadka iyo jaamacaduhu waxayna baraan in la cabsado la qiimeeyo xaaladda la kalkoogareeyo walidaalika businesska qolooyinka economics soo dhigtaa si fiican u yaqaan waxaa jira waxa la dhaho analysis paralysis waxa weeye maamulku wuxuu ku curyaamayaa inuu daraaseeyo arrintan bit by bit ilaa 500% si loo hubiyo riskiga in loo minimize gareeyo 2000%. ولذلك فرصة أساس كلها فيها. ما بالله بهنا فلنقيت استيراد بدن. intuition كأغلط شو في حالة ده قياس قيمة move لكن وح برشة أساس نلقو ما برا. كلما أو وح برشة كرسي كعدد أو عبسية كورد دونتا. دفاع عدل دونتا استبدل كانوا قوات كان دورا. سو حتى يكون في عنتها إن 100 كيلومتر بالأور كل دقائق. مربابور كان حق الدوم دي مال الوها اللي قبل دليا. بوديجا ولا قبل دليا مشكلة من الجانس هذا هيستا move now طبعا وحنوجو أستاذ كيني أو the front line كجرو وحاسين إنك كشيء كين تونا وحاني نبكي مرة يسي هردلا أنت يهولها استراد بدن وح بدن وقصصه أياد دقيقة سنتها next good أنت اسمر كان سواء ركني أو الدنيا دي على ركتي أو جهاد اللي قاعد جرا دوقاتي أو قبله هذه سوقاتين أو ويلو هذه سوقاتين وحرنا إنهم فيرينه dadka guulaysto ganacsiga asaasay ee 10%ga boqolkiiba 10 ka la sheegay ila 90 waa bixin Soomaa boqolkiiba 10 ka guulaystay talow maxaa sifooyin u ah waxaan aad u jeclaysanahay sida loo aamusan yahay it's interesting thank you hal mar isu sacbiya waxaan dareemayaa in ay la socotaan which I really appreciate sifooyinkan qaar kamid inaad haysto suuragal qaar kamid inay ka maqeen laakiin mid walba hal mar lenses ka ku fiirin next sifooyinkan waa sifooyinka caamka ah just 6 aan ka soo qaatay ko passion qofka waa inuu jiraa wax uu jecel yahay engineering baratay waxaad furan kartaa beauty salon maxaa ku jira it's not a big deal gabadhii aan rangareynaysa business ahaan koraa kala socotaa waxaad furatay timajare rag akhyaaro saaxiibadaya 5-6 timajaro kala duwan ayaa magaalada uga furan kumanaan kun oo dollar bishi ku xisaabtamaya shaqadiisana waxa waa inuu kormeero degree uu haystana biochemistry waa atin fiiri marka wax baranayso waxbarashada degree-ga inaad ku shaqayso kuma qasbanid wake up passion kaaga muxuu yahay mid kale ogow meesha ay ku direen oo aad bachelor ku qaadatay inaadan ehel u ahayn baaba suuragal laakiin gudubtay oo qaadatay qash ku qaada ama qash qalin ku qaada waxa doonto ku qaada gudubtay maanta maxaa lagu dhahaa bachelor of magacaad leedahay no problem now xaqiiqada hadda wajaha marka maxay tahay waxaad jeceshahay waxaas markaad heshid waxaas ka qaban kartaa ogow nin baa cuntada jecel KFC ninka asaasi marka laga soo Kentucky Fried Chicken la dhahaa hebelow bas خلاص cuntadaas la cunayo la sameeyo chicken ka la isku daray wixii dhadhankii wixii la ayuu intuu fiiriyo xoorinay baashsan waa ka fiicnaan kartaa problemkiisi loo xaliyay sana la rabaa weerar fiiri dhag qatar Soomaha خلاص problemkii isagu iska xaliyo ganacsi ka dhigay KFC waa ilaa maanta waa kaas aad ku jirtid cunays after meeqa 100 sano ku dhawaad number 2 qof aragti laha ganacsi abuur kara it's not just 2 days 3 days afar maalin 5 maalin bishan sanadkan no long haul waa inay ku muuqataa safarka dhererkiisa maanta laga yaabaa inaad u waaysid lacag lagu xiro lagu bahdilo arrimo u samaysid quruxda ee mustaqbalku leeyahay dartiisa ma geli karo dagaal nima mustaqbalka dheer ku xisaabtamo marka aragtidaada maxay tahay madax banaani familka ka soo jeedid oo laga yaabo qofkii ugu horeeyay ee wax bartay aad tahay inaad ka saartid faqriga wuxuu noqon karaa aragti maxay ku sahlaysaa aragtidaas marka jiifkii ku diidaysaa dhacdhaca nolosha kuf badan ay imaan doono habeen badan oo soo jeeda ay imaan doono niyad jab lacag la'aan gaajo soo jeed kafee badan oo lacaba habeenkii imaan doono ma xallin kartid mana haysan kartid haddaadan aragti fog aadan lahayn aragtaas isla soconnaa 3
risk taking waa in nolosha aad ogolaatid in aad wax waysid saad wax u heshid gabadhii aad guursanaysaa waxay ku tiraahdaa alla ku raa nin ganacsada ma rabo ama xaaska kugu kacdo waxay ku tiri nin soo jeedkan tirada badan maqnaashahay waxaan ma rabaa runaan ku sheegaano ani waxaan rabaa nolol romantic aan u baahanahay nacniciina shukulaatina meeshan aan ku mashquulsan tahay jooji waa u sharaxday waxaan tiri listen baby mustaqbalkaan u soconaa ciyaalkeena kuwa aan dhali doonno hawshooda waxbaa u sharaxday she doesn't see ani waxay tiri no haddaan u baahana maxaa mustaqbal gaara haddaan ma raaxaysanoo yahay ma arki karto risky waayo you may lose her inaa waysaa suuragala in la kala tagaa suuragala waxay ka mid tahay waxyaabaha aad diyaar u noqonayso waalidkaaga kugu diidi doono hadda ganacsi haddaa u tagto jaamacaddaan ka baxay master intaan aadi lahaa aniga business aan abuuri rabaa hooyo waxaan u baahanahay aabba waxaan u baahanahay lacag $1,000 in la ideemiyo maxaa qabartaa waxaasi waxaasaa qabada ma arki karaan habaari duco aa lagu dhihi doonaa waa inaad isu diyaarisaa so risk taking way comfort zone waxba kuma hagaagaan number 4 determination qof go'aan leh oo kufka diyaar u ah waa lagu ceebayn doonaa waa lagu shaaciraysan doonaa waa wax kasta la sameyn doonaa maxaad sameynaysaa waa inaad ku xisaabtantaa inaad adkaysi u leedahay siyaasi haddaad tahay haddaad arday tahay haddaad ganacsado tahay u ciddaad doontid ahaaw ganacsiga dagaal weeye shaqadu sideeda waa dagaal marka qof aan go'aan lahayn oo kufka diyaar u ahayn ma ka bixi karo number 5 muxuu noqonayaa sales person qof wax gadi kara ganacsado noqon kara waxba kama gadi kartid dadka haddii aadan wax ka gadi karin haddaadan wax gadinna ganacsi ma jiro walidaalika gabar kasta iyo wiil kasta waa inuu hormariyaa aqoonteeda saleska wax kale maaha communication fiican goormaa dadka lala hadlaa see loola hadlaa indhahaasaa laga axlaal kalaam luqatul cuyuun indhahaagaadan adeegsanayn mar loo baahan yahay inaad labada indhood ka fiirisaa saas leedahay mar loo baahan inaad sii jeedsada labada indhood gelinaysaa no baro goormay munaasab tahay maqaayadaha hadda aan kafeega ka cabnay waxyaabahaasi gabdhaha iyo wiilasha ka shaqeeya qaarna adeegoodan ku raaxaysanaa kuwa markay soo socdaan ka sii jeedsanaa waay qaabka lagu soo wajahayo sida wax lagaaga qaadanayo lacagtan jeebkan ay ku jirtaa qofna gacanta intuu soo gashto la baxaa qofna si wirelessly ah ayuu ula baxaa yaa la jecel yahay kan saan dhaha mise kan wirelessly sales was saas so you need to be in a good salesman ugu dambeyntii isu diyaari rule breaker sharciga meesha ka jira ee qaanuunka inaad jabin kartid qaanuunkii caadiga ahaa ee dawladda iyo nidaamka iyo kala dambeynta ma aha qaabka wax loo qabto qaabkii loo shaqayn jiray qaabkii ganacsiga loo samayn jiray waa inaad beddeshaa waa inaad diyaar u noqotaa inaad timaado business model kale waxyaabaha cajiibka ah ani macallin baan ahay jaamacadda muqdisho macallimiinteedan ka mid ahay gaar ahaan post graduate-ka muddaan dhigayay 25 sano la soo dhaafay macallimiinta magaaladan ka mid ahaa wax badan soo dhigay yaqaana now waxaa ii muuqatay energy-ga macallinimada uu baahan yahay aad iyo aad u badanta diyaariska cashirka bixinta imtixaanaadka just heavy lifting tiro badan oo aanan muuqanin ayuu macallinku sameeyaa mashaariicda kale waday ayaa waxaa ii soo baxday inayna iswaafaqaynin hawshan kale aan wado because ani consultancy aan ahay shirkado kale aan muxuu ahaa rangareeya howlo kale ku mashquulsanahay now macallinimadana waa jeclahay qaanuunkii caadiga ah waxay ahayd in jaamacad inta la tago la xaadiro fasal aan galo ardaydii 30-40 qaabilo 10 siiyo imtixaan ka qaado now that inay meesha ka baxda way physical interaction kii mushkilu keenay because anigana available ma ihimana laga faa'iideysan karo that's why macadkeena aan u aasaasnay tusaale ahaan Somvato Institute qaybta hore waa hadda waqti idin kaga maluminin waxaan go'aansaday wixii aan dhulka ku bixin jirnay cirka ma ku bixin karnaa markaan bilaabaynay raggii professorada ahay qaar kamid ah u sheegay waxay dhaheen ustaad dadka online wax ma ku baran karaan dadkan mobilkiiba ku mashquulsan yihiin kan baaba la degay maxay wax baranayaan iyagoo su'aasha wali nin oday wada xaga kuwiina hor jooga wax la bari waayay ma kuwa fog baa la bari karaa so the norm waad arkaysaa way ka soo horjeedaa wixii aan u baahnay today 35,000 oo arday ka diiwaan galsan oo koorsooyin qaata waxaa jira fasalo online marka aan dhigo
waxyaabaha inii sheego interesting waxaa ka mid ah fasaladaas online-ka can you imagine waa laga yaabaa inay ka badbadis tahay 10 times ay more productive ka yihiin ka wax soo saar badan yihiin ardayda ka dadaal badan yihiin kuwii fasalada aan ku ogaa why because lacag badan ay bixiyaan why because mas'uuliyaddu isagay saaran tahay why because macallin ma baahiyaa aniga I'm just your coach kaaga ah waa ku hagaa shaqada adiga qabsanaya ogow from the get go kowgiiba qofkii muxuu aaminay war heedha baasha aniga ii taal ileen you cannot imagine siday wax u baranayaan sidoo kale waad jebin kartaa sharciga ganacsiga aad gel rabtid marka rule breaker markasta noqo isu diyaari say wax yihiin wax u qabana haddaad tiraahdid you lose because ma ku guulaysan kartid dagaalkaas next sifooyinkaas iyaga ah maadaama aan isla fahamnay waxaan rabnaa graduate maadaama aad tahay ardayna aad tahay adiga maxaa qaban kartaa hadda waxaan dhan waxa laga yaabaa inaad u aragtay lacala no waxaad qaban kartaa jira adiga maanta fiiri waxaan next waxyaabaad qaban kartid very simple qaanuunka koowaad aan kuu sheegaa marka wax kastood baratay waa inaad tirtaa jaacadda muqdisho ha iga raalli ahaad si ku meel gaara raalli ahaad wax kastood baratay ilaaw learning ma jirino maanta wixii ka dambeeya unlearning samee iska tir waana arki doontaa sababta wixii anfacad ka reeban doontaa laakiin wax badan oo lagu soo baray oo caqabad ku ah ayaa jira mashaariicda aad samayn doontid next waa kuwan si fiican u fiirso marka iskuulku wuxuu sidiisaba na baray inaanan fashilmin imtixaanka maxaa lagu dhahaa ha dhicin nolosha dhicdhicida rabtaa waa iloobaysaa kaas kufidda iyo fashilka iyo inuu caadi yahaad aaminaysaa kow number labo iskuulku wuxuu ku soo baray business plan inaad samaysatid perfect oo cajiiba oo loo bandhigi karo hormuud iyo dahabshiil iyo salaam bank iyo qolo kasta si ay kuu maalgeliyaan uma baahnid noloshu maxay leedahay entrepreneurku waxba ma sugo cidna business plan uma qaato isagaa hawshiisa garbaha intuu ku qaato war waanu sahminaynaa balukaadi dalaq markuu dhaho uu soo dhaawacmo soo noqdo wuxuu dhahaa waryaa wax yar baa i gaaray bahashu saan u malaynaya ma ahane dagaal intuu guulguul kaaga gooyay maxaa la yidhi galidkaaga ma jiro waa sidii oo kale entrepreneurku isagu waa wajah laakiin jaamacaddu maxaa lagu baray hey watch out business plan ma haystaa maya khalaas waa fashilantay cidaad u baahan tahay ma lahanbe yaa business plan u gudbinaysa okay saddex iskuulka wuxuu ku baray inaad cabsatid wataa haddaa idiin sheegay analysis samee isqiimee si alla kuu galay waxaa samaynaysaa cost of benefit analysis baba war adigu ma dowladaa tahay maya multi-billion dollar miya khasaara maya small startup baa tahay move laakiin kale maxaa waaye entrepreneurku sidiisaba optimism uu leeyahay mutafaa'il waaye rajo dhimatay meel duntay ayuu wuxuu ka dhex arkaa fursad wataan idiin sheegaya qashinka soo lagama dhex arkin waa tii kale la arkay meel kasta so always waxaad ku xisaabtantaa entrepreneur haddaad tahay waddanka dagaalaa ka socda waddanka dowladdii waa liidataa afrikaan baan nahay waxaana iska dhaadhicisay entrepreneur shaqo kuma laha number 4 iskuulka wuxuu kuu tababaray inaad shaqo heshid entrepreneurkuna waxaad shaqo kuma le isagaa shaqada abuuraba okay xirfaduu leeyahay shaqadii isagaa abuuraya iskuulku number 5 muxuu ku baray wuxuuna barayaa in aan waqtigeena gadano oo aan dhahno masalan ma dareemaya waa saxake iskuulku waqtigu ka gadaya wuxuu ku leeyahay shaqaale noqo 8 saacadood $1,000 ku bedelo you sell time laakiin isaga shaqadiisa ma aha waqtigiisii uu maal gashtaa hal saac ayuu ku qaadanayaa $1,000 qofka entrepreneurka ah so it depends ilaa iyo qaybta u hooseyso ah iskuulka wuxuu ku weydiisanayaa uu soo baray mar walba talaabo qaadis amar qaado weydii dadka tartiibtaada excuse me ma ku ag mari karaa entrepreneur waxaas ma qoro intuu iska kaa leexiyo ag maraya war maxay ii dartay sorry cheer ismaal lahayn wuuna sii soconaya move so skillska unlearn marka lagu leeyahay waxa weeye iska bedel waxyaabo badan oo frame kugu jira oo loo baahay waxyaabahan session kale oo dheeri u baahnaan doona dabcan hadii nasiib aan isu yeelo marar kale iska arki doona next waqti baan nahaya horu soco talaabooyinkan qaad marka khalaas waa dhamaatay growth mindset yeelo iska dhaaf ciriiriga iska dhaaf waddanka 4.5 baan ka dhashay qolaa laga yaabo 0.5 inay inta fadhido waa sida loo sheegay wayna aamineen nasiib darrada jirta there is no 0.5 there is no half qof kastoo inaga naga mid oo dhammaystiran yahay beenta bannaanka lagu hayo iyaynan noloshaadii baabi'inin forget waa dhammaystiran tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa waxa yaalla wax kasta ana cinda dhanna cabdi bi addoonkayga wuxuu iga malaystaa 0.5 haddaa u malaysa ilaahay 0.5 wixii uu siin lahaa inuu ku siiyo hadhow ma ku qabsan doontaa ma dhihin doontaa ilaah wana maxaasaan igu gashay you can't
marka hore adigu la imaamo. Number 2 noloshaada wax isbar. bal fiiri bachelor qaatay maxaa isbaraa maya aqoonti saxdeed hadday ku bilaabatay hadda isbar maxaad isbaraysaa xirfadihii ka maqnaa. 3 practical experience hel ustaad baafa ka hadli doona aad shaqada suuqa aad ka shaqeey muxuu ahaa lacag laan ku shaqeey nasiib darrada ardayda haystaan ku sheegaya shirkadahan shaqaalo u qornaa mararka qaarkood oo soo weydiiya qofka wuxuu ku leeyahay su'aasha ugu horeysa ku weydiinay ustaad meeqa lagu shaqeynaa. That's wrong question. su'aal saxan ma aha taas because maxaa value haysaa horta adiga inda baqaaqa adiga tacbaan adiga fresh lacag waxa ku ah inaad shirkadaasi ku biirtidood ka shaqeysid sama waa lagu xadgudbaa shaqaala waxaan Facebook ay ku soo qorayaan ma aragtay maalmahan dambe oo qofku hadaa wax soo qorto wuxuu ku leeyahay dadku waa laga faa'iideysaa oo no ana faa'iideysanaya actually. 4 project yar bilow waxyaabo yar oo side hustle istijaabi adiga intee ku fiican tahay 3-4 mashruuc samee fashilan halkaasna ha ku dhamaado. arrinta shanaad ee muhiimka waxa weeye ustaadka hadaa ka hadlay financial literacy yeelo kala baro maxaa waa faa'iido kuwa maxaa liability maxaa asset maxaa aniga anfacay see wax u keedsadaa cashkayga see u maareystaa $200 ogow qofkii maareyn waaye gabadhii 200 qaadata iyo wiilkii $200 ama $100 ama $50 qaata oo maareyn waaye $50,000 ma maareyn kara beentiisa waa. So don't believe wax weyn markaan helaa wax maareynaya hadda inaad baratid ayaa loo baahay. Skills samayso xirfado stay informed qodobka 7 fiiri nin wax og noqo gabar wax og noqo 4 saac internetka ku dhex jirtaa Facebook aad haystaa internet wifi waxa ku xiran cajiiba ku xiran haye iPhone waxa wadataa 24 mid kan la gaarin xataa hadda wadataa ana og laakiin maxaa ka faa'iido xirfado ku yeelataa. 8 reflection samay cabaar markaa socoto dib isu eg waxaad tiraahdaa jihadan ku socdo masaxanta dad ma la tashtaa qof wax ma weydiiyaa haye ustaad yaan la tashanaa dadba ma haynee no raadi haddaan ku soo raadiyay waa ku waaye ustaad dadka maba la helaayno ku celi waa waaye haddana ku celi 8 9 10 times qof aad raadiso waaysa ma jiraan maalinta koodii labaad baad rabtaa inaad hadduu alla kuu roon yahay qofka intaad telefoon u dirtid oo kadibna uu kaaga soo jawaabo. naam su'aal isweydii hana u qaadan inaan ku qursanayo qiimaha aad leedahay maxay tahay markaa message-kaaga ka soo jawaabayo maxaa igu fadhida ani it doesn't mean inaan ku qursanayo laakiin aniga maanta balaanka ii dejisan inteed uga jirtaa. nin baa ayaan dhaxaas wuxuu yiri dawal ku reey wallahi hawlo badan ka socda madaxtooyada waxbuu noo sheegay markaas wuxuu yiri waxaas wixii details tira badan noo bixi markuu dhameeyaa waxa iri ma hubtaa iri madaxweynaha iyo teamkaas markii wax iska helayeen liiskaas aad maalintaas ma ku jirto shirkina ka qayb qaadatay ama aad ku jirin qaybta horeba waxaan ku sheegay maba kugu socdaan say u soconayaan intee ka soo gashaaday maba geli kartid ba actually nin baa gadaal u fiiriyay false ahayd ben iyo barbagando maalintii nagu wadabay waxba kama jiraan xagee ka soo gashaa markii isweydii tartiibtaadana finally qaybta ugu dambaysa indhahaaga fur indhaha waa furnaadaan magaalada intaad maraysid iska dhaaf indhaha isku xiran jaamacadda muqdisho dhexdeeda fursada ah meel kale ka raadinaysa jaamacadda ama mashaakil haysta issues jira ardayda dhexdooda ka muufaysan kartaa maamulka dhexdiisa ka muufaysan kartaa magaaladan aad amraysid raadso magaalada wadadan ma ahana meel walba aad fikir indhaha waa furnaadaan kana faa'iideyso talaabooyinkaas iyo talooyinkaas waxaan rabay si kooban inaan idin la wadaago waqtiga aad iyo aad u yar ay wish inaan haysan lahayn waqti intaan ka badan waxyaabo mawduucyo loo baahan yahay waa mid in loo galo hal mid inta la qabto saacad iyo 2 saac lagu qaato so laakiin who knows inaan mustaqbalka عارف سكوير دون هذا وبالله توفيق السلام عليكم